magaalada Laascaanood ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar soconaya muddo 4 casho ah. Tababarkan waa tayeynta haweenka dhinaca hogaaminta degmada Laascaanood, waxaana tababarkan fulinaysay TIS Plus iyadoo ay maalgelinaysa hay'adda USAID. tababarkan ayaa 4 casho uu soconaya waxay haweenkaasi ku falanqeeyeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta hogaaminta iyo sida ay ula shaqeyn lahaayeen degmada Laascaanood oo mashaariic fara badan laga fulinayo sanadkani. haweenkan ayaa waxay qaateen casharo aad u muhiim ah kuwaas oo loo soo bilaabay 18 bisha iyadoo maantana loogu soo xidhay gudaha magaalada Laascaanood. tababarkan ayaa waxaa mid noociisa aysan hore u qaadanin haweenkaasi, waxayna ka sheekeeyeen inay wax fara badan ka faa'iideen, aqoon fara badanna ay ka heleen. waxayna hayeen xubnihi ka qayb qaadanayay ururada haweenka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya nabadda, bahweynta nabadda ee gobolka Sool, ururada haweenka u adeegay ka jira magaalada Laascaanood gaar ahaan degmada Laascaanood. waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda TIS Plus iyo shaqaalaheeda iyo qabanqaabiyaheeda iyo wadamarinteeda iyo rag iyo dumarba ayaan u mahadnaqaynaa. inantayada haweenka kamid ah bahweynta kamid ah naloo sheegay in dumarku maxaan ku raahdaa kaalin walba ka gali karo, meel walba uu hogaamin karo, xildhibaan iska dooran karo, maxaan ku raahdaa in wax walba maxaan ku raahdaa iyagu mas'uul ka noqon karaan, iyagoo gurigooda mas'uul ka ah haddana siyaasadda meel walba ka gali karaan. hay'addu waxay noo sheegtay in ay noo wadaan horumar, tababaro, maxaan ku raahdaa in kubadda garoonka kubadda oo maxaan ku raahdaa roog la dhigayo oo la kordhinayo la dhisayo. waxay noo sheegtay oo kale tababaro, waxay noo sheegtay laamiyo, waxay noo sheegtay haweenka in la gacan qabanayo. maxaa lagu doortaa sidee ayaa bulshada loo hogaamiyaa, waa maxay fursadaha ka jira gobolkaaga, sidee ayaad uga qayb qaadan kartaa, roob noocee ayaad ku leedahay haddii mashaariica gobolkaaga ay yimaadaan, haweenku waa maxay doorka ay ka ciyaari karayaan maanta horumarka gobolkooda ka socda. yacni maanta waan u waraynaa gobolkeena horumar ayuu ku tallaabsanayaa maalin kamid ah. yacni in gobolada kale sidee ayaynu ku gaari karnaa oo ay haweenkeenu ugu noqonayaan kuwa ka qayb qaata roolkoodii iyo doorkoodii ka ciyaara. karaaraha kala tegiyo timaha docaaniga markay laabyaha dubana qalbiga dawro oo inuu kugu yaalaya anigu doobaan wadaa bulshay weynoo dhan oo dhan lagu tiirsaniyo waxaan tajiyaa murtida sidii sangadoodan iyo sugaariga qabada dheer dushiisa iyo qaanka ugu qabsaday dawaaliga boodad iyo dilaaciya xawligii markuu dalashaad ku jiro dabaaldegay maalinta anigu doobaan wadaa bulshay weynoo dhan oo dhan lagu tiirsaniyo waxaan tajiyaa murtida. laakiin hadda marba waxaan la yaabaa si arrintii u dhawooday oo ay lagu guulaystay oo u dhacday oo maayirkii shanaadiyada loo maray wadooyinkii loo furay laamiyadii loo saaray waana wax ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulilah rabbil caalamiin. marka waxay qorsheeyeen inay siiyaan 100,000 oo 100,000 kadib 200 ay dhashay oo 200 ay hadda mid noogu qabatay. maxaa qorsheyn lahaydeen oo lagu qabanaya laamiyadii baa marka hore development unitarianka loo gudbiyay. dabeedna aan ka hadlay laamiyada meelaha looga baahan yahay dad badan sideenan oo kale ay isugu yimaadeen xamdi arrintaa la xoojiyo laga hadlay kadibna ay arrintaas niyad gashay. alxamdulilah waan soo dhaweynayaa, waan u mahadnaqayaa howlwadeenada nasiinaya seminaarada hadday yihiin TIS Plus hadday yihiin nagaad awaan ku hadlay waqti sare ma faa'iidaysano. waxaan jecelahay inaan mahadnaq ballaaran usoo jeediyo gudoomiyaha gobolka, maamulka degmada iyo dhammaan haweenkii nagala soo qayb galay haweenaha degmada Laascaanood. shirkii 4 maalmood ahaa ay dulqaadkii ay muujiyeen iyo kartidii iyo runtii fikradihii wanaagsanaa ee xagalka ay nagu soo kordhiyeen ayaan jecelahay runtii aad ugu mahadnaqo. dhammaantiin waad mahadsantihiin. waayo waxaa qofkii qof dumar wax baraa wuxuu la mid yahay isagoo mudan wax baray. qofkii maartay waa hooyo wax baro gurigooda wax baraysa. qofkii nin wax baraana ninka uu wax baray kaliya waxaan jeednaa markaa wixii idii soo kordhay ee la idii sheegay ee la idinku tayeeyay inkastay challenge ku tahay ama ay tartangelinayso ragga haddana waxaan u aragnaa wax dad oo dhan usoo kordhay waan aragnaa
سأقول وسأسمع فرحان كان كسوق يقول حيتان كده تعبر كوايت وحنا جينا وحي هذا ركين أنتي نتفاهم في الشارع وأنت جالسان ويقول حنا طبعا بوا كلسوني ده وحي يعرفين هذا كلسوني ده يكون تاسيد كتير ما إلا ما قاسين إنسان الشيء ده كيجوري واحد كستوى هاكو بلام بلو هدي بلو ده اسمه في نادنا ومدو يكفي لسته سيدا الشيء ما أنت وهم مشاريع ماشى مرة أمر فيرجينيا ودور $1,000,000 ودوال إلى $1,000,000 حوجا وحين قبل عرفتي العقد على الشقة $100,000 إلهي من هذه سنة الجلاء أمورنا مركع أي يدو أي تلدي الأمر بقطع أي إلهي ترسعته يسوط الشرط يسوط الشرط كل بجانب عبد الكريم نولل صومالي channel مقالة الله سعنود